kulan wacan. waxaa jira qoraa ah in qof kasta uu jacayl u qaadi doono 3 qof oo kala duwan noloshiisa, sidaasi darteedna uu la kulmo 3 jacayl oo kala duwan. waxaa laga yaabaa inaad jacayl dareentay in ka badan 3 jeer, balse waxaa jiri doona 3 xiriir oo ka soocan inta kale, waxayna noqon doonaan 3dii saamaynta ugu badan kuugu yeeshay noloshaada. kuwani waa 3 jacayl ee ka turjumaya noloshaada iyo waxa aad ka baranayso. jacaylka koowaad, jacaylka da'da yar ee ka dilaaca xoojinta iyo xiisaha aad ku aragto keliya filimada. waxay u badan tahay inaad la kulanto jacaylkan xilligaaga da'da yar. waxa uu noqon doonaa xiriirkaaga dhabta ah ee ugu horreeya oo qof walba uu xiiseeyo. waxaad wada qaadanaysaan daqiiqad kasta, maalin walba oo aad kala maqan tihiin. waxaad dareemaysaa xanuun, waxaadna xisaabinaysaa daqiiqadaha ilaa aad dib uga kulmaysaan. xidhiirkan waxay u badan tahay inuu ku bilaabmo asxaab ahaan. jacayl aad u adagoo degdega ayaad u qaaday. maskaxdaada curadka ah ma garanayso sida loo farsameeyo. waxaadna ku raaxaysanaysaa xamaasadda degdega ah adigoo aaminsan inaad heshay lamaanahaaga nolosha. wakhti dheer kadib, arrimuhu sidii aad u malaynaysay uma eka. wixii aad mar u malaynaysay inay romantik yihiin hadda waa daal iyo caro. waxaad isugu buuqaysaan waxaan micno samaynaynin, balse haddana dib iyo isugu soo laabanaysaan maalinta xigta. ugu dambayntii khilaafkan ayaa midkiin saamaynaya, waxaana jiri doona ilmo kama dambaysa iyo kala tag xanuun badan. waxaad dareemi doontaa in wadnahaaga laga goynayo laabtaada. waxaad dareemi doontaa sida dhammaadka adduunka oo mar dambe aadan heli doonin jacayl. waxaad bilooyin ku qaadanaysaa inaad dhegaysato heesaha jacaylka, la sheekaysiga asxaabta, si aad ooga gudubto burburkaas. maxaan ka barannay inuu dareenka jacaylka yahay dareenka ugu cajiibka badan dunida, islamarkaana xiriirku uusan noqonaynin mid mar kasta guulaysta, xaaladdana aysan ahayn sida aflaanta aad ku aragto. jacaylka labaad, jacaylka adag waa jacayl xanuun badan oo noocyo badan leh, laakiin sidoo kale wuxuu kuu keenaa duruso qiimo badan. waxay u badan tahay inaad isku barateen saaxiib aad wadaagtaan ama xaflad. arrimuhu waxay ku bilowdaan si kadisa. waxaad dareemaysaa calaamado kuu sheegaya in qofkan uusan wanaagsanayn had iyo jeer, laakiin haddana waad iska indhatiraysaa sababtoo ah waxay kuula muuqdaan dadsan oo adiguna waxaad diyaar u tahay wax kuu dhadhamaya kadib jacaylkii koowaad ee aad soo martay. wuxuu u muuqan doonaa xiriirka ugu wacnaa uguna xiisaha badnaa ee ku soo mara. waxaad dareemaysaa sidii qof mas-uula oo arrinku haatan ay u dhan tahay. markay sannaduhu sii socdaan, waxaad ogaanaysaa in wada noolaansho ay tahay mid aan macquul ahayn. calaamadihii aad horay u dareentay ayaa hadda weynaaday oo isla markiiba ku lalaya indhahaaga hortooda. waxaad xaqiiqsatay inaad degdegtay oo aad u dulqaadatay qofkii adigoo meesha ka saaraya farxaddaada. waxaad aragtay khiyaanada iyo beenta. waxaad dareemaysaa in lagu khiyaameeyey, laguna qadarin, oo aad tahay qof aan qiimo lahayn. waxaad dareemaysaa inaad sannadahaagii ku lumisay qof aan u qalmin hal daqiiqo oo aad adiga leedahay. waxaad noqon doontaa qofka soo afjaray xidhiirkan, sababtoo ah waxaad ugu dambayntii baratay waxaad rabto, waxaad u qalanto iyo waxaad u baahan tahay. kani waa jacaylka kaa dhigi doona inaad ka nasato inaad qof kale jeclaato oo aad bilowdo inaad naftaada jeclaato. maxaan ka barannay inaad ogaatay waxaad ka doonayso jacaylka iyo waxaad u baahan tahay. jacaylka saddexaad, jacaylkan waa kan sida lama filaanka ah kuugu soo gurguurta marka aadan u baahnayn jacayl. marxaladda noloshaada waad raaxaysanaysaa. waxaad dhistay gidaar aad ku ilaaliso wadnahaaga yar. jacaylkani wuxuu jebin doonaa gidaarkaas. waa jacaylka joogteen doona inuu soo garaaco albaabkaaga si kasta oo aadan uga jawaabin. waxaad arkaysaa in qofkan ku soo jiidanayo, laakiin waa wax ka badan damaca. waa wax ka badan jacaylka oo keliya. waxaa ku soo jiita sida uu u dhaqmayo, waxyaabaha ay sheegayaan iyo nolosha ay ku nool yihiin. waxaad la dhacaysaa sida ay ku dareensiiyaan. waxay qurux u arkaan cilladahaada. waxaad u danaynaysaa iyaga in ka badan sidii aad u danayn jirtay jacaylkaagii hore. waxay kuu ammaanaan si aan weligaa lagu ammaanin, waxaadna u ammaantaa si la mida. kani waa jacaylka ku baraya mar kale sida loo dareemo jacaylka. kani waa jacaylka ku bari doona sida wax loo jeclaado. wuxuu ku bari doonaa naxariista iyo qadarinta nolosha. waa jacaylka aad la qaybsan doonto inta noloshaada ka haray. jacaylka koowaad iyo kan labaad ayaa noqon doona kuwa kaa caawiya inaad kobacdo iyadoo aan loo eegin dhibaatada ama xanuunka aad dareentay. waxaa laga yaabaa inaad dareento inay kaa qaateen sannado badan oo noloshaada ah, balse maanka ku hay inay kuu diyaarinayeen jacaylkaaga saddexaad ee noloshaada. maxaan ka barannay in jacayl dhabi ah uu jiro oo aad kalkacayl iyo badbaado ka heli karto
qof kale oo bini'aadama. adiga ayaa si buuxda u maamulaya xulashadaada. go'aammada aad qaadato waxay go'aaminayaan ayahaaga iyo nooca jacayl aad doonayso inaad dhex dabaalato.